waxaan uga qayb galay hal buugan uga qayb galay yiraahdo horumaryaha nolosha buugan wuxuu ka hadlayaa nolosha wuxuu ka hadlayaa guushu ka hadlayaa saaxiibku ka hadlayaa sida go'aan u qaadaleedu ka hadlayaa buugaag kalena waad qortay maxaa kamid ah waxaa kamid ah xaqirin haweenka caruurtan dayacan cidaaba u maqan tusmaal xulkii xigmadda tusiye caruurtan dayacan cidee u maqan wiil yar baa tahay caruurnimadu inay si ku taabanaysaa laga yaabaa maxaa kugu dhaliyay inaad buuggan qorto qofkii damiir leh wuu ka naxayaa caruurtan darbijiifka ah waa caruur anakoo kale ah caruurtan daruufo jira ku qasbay markii aan arkay waan ka walwalay walwalkaasina wuxuu idiyay markii aan buugga soo saaray aad baad u yar tahay weliba waxaad ku jirtaa dugsiga sare fasalkee fooman baan ku jiraa sidee kugu suurto gashay inaad intaad meel fadhiisato wax qorto horta waxaan sidaan isleeyahay hiibo aad u leedahay 2010kii isku day horta inaan wax qoro ilaa wuxuu ii suurtageliyay 2012 bishii 6 bilaabay si rasmi ah inaan wax u qoro hadda inta buug ay qortay waa imisa 6 buug baan hayaa hadeer 6 buug inaad qorto wax yar ma aha waqti badan iyo soo jeed badan iyo miyaad gelisaa waqti fara badan aan geliyaa marka dhalinyarada saaxiibana isfasalka waxay yiraahdaan maniyo maxaa isku waalaysaa daayar baa tahay waqtigaa lama gaarin ha iswaalin muhiimaddu waxay tahay inaan bulshaweynteeda maal iyo magac ka doonima buugteeda waxaan ku doonaa bulshadeeda wax soo saar inaan la qaybsado markii aad halkan timid ee bandhiga timid ee buugaaga la timid dadku sidee ku arkeen wiil yar oo buug qoray dadku dad qaarkiis way rumaysan yihiin dadna waa ay la yaaban yihiin sababtoo ah Soomaalidu waa ku yar yihiin aan aaminsanahay dad Soomaalidu waxa ku jira dhalinyaro maskaxdooda qeyraadka dhex fadhiso misane aan hadii dhalinyarada lagu dhiirigeliyo way qabsan karaan dhalinyaradu wax ka maqan dhiiri la'aan goormay kugu dhalatay inaad niyadaada gelisay inaad wax qori karto deetana intaad meel fariisato aad bilowday inaad buug qorto 2010 karto waa isku dayay 11 waa isku dayay 12 kala bartiinkiis bishii 6 aan bilaabay rasmi inaan wax u qoro caruurta Soomaaliyeed markaad ka hadlayso tusaale ahaan oo buug ka qorayso dhibaatooyinka iyo xadgudubyada ay la kulmaan maxaa ku muuqday oo aad aragtay indhahay wax qabanaan in caruurta Soomaaliyeed ee la xaqirayo sababtoo cunuga caruurta Soomaaliyeed kan taajirka ah ubadkiisa u darso waxbarasho ku fikir in ubadkiisa caruurtaas ay saameyn doonaan caruurta casayaasha muunu ku fikirin sababtoo wuxuu ka fikir ubadkiisa waa wadada u galay caruurtaas way saameyn karaan caruurtan waxa marka maxaa keen caruurta inay dayacmaan maxaad uga jawaabtay marka caruurtu waxyaalo fara badan keen inay dayacmaan sida ku dhaqaale la'aan qoysku kala tago caruurtu aan daryeel wanaagsan la siin kuwaas iyo waxyaalahaas iyo kuwa kamid ah keen caruurta inay dayacmaan rajadaada maxay tahay mustaqbalka rajadeedu aad bay u sareysaa anigu waxaan ku haaminayaa hoggaanka dalka inaan mustaqbalka noqdo mar uun insha Allah